waxaa maanta magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal soo gaaray oo lagu soo dhaweeyay samafale saxafi Cabdimaalik Muuse Coldoon oo saxafi inta badan u dhaqaaqa dadka taagta yar ee u baahan in la kaalmeeyo soo dhaweynta saxafiga ayaa ka bilaabantay deegaanka Garyaca oo dowladka bariya magaalada Boorame waxaana soo dhaweynta ka qayb qaatay saxafiin dhalinyaro haween iyo badiba dhalinta xaafadda Xaasleyda oo soo dhaweyntani loo sameeyay samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon wakiil uga ahaa fanaanka caanka ee Soomaaliyeed nimcaan Cabdiraxmaan Xasan ilaa barabilowgaba waxa halkaas hadalkay bafuray Maxamed Abiib Maxamed gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee garabka dhalinyarada xisbiga mucaaradka ee wadaniga gobolka Awdal ahna sidoo kale gudoomiyaha xaafadda Xaasleyda iyo sidoo kale dhalinyaro kale oo siyaasiyiin waxaana dhamaantood ay gacmo furan ay ku soo dhaweeyeen samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon soo dhaweynta Cabdimaalik Muuse Coldoon waxa qayb weyn kale oo ilaa xalay qabanqaabada ku jiray fanaanka weynaan nimcaan Cabdiraxmaan Xasan ilaa oo isagu soo haleeli waayay ana soo wakiishay inaan soo dhaweynta Cabdimaalik Muuse Coldoon inaanu anagu booskiisa aan joogno ka soo qayb qaadano waxaan ku leenahay soo dhawow waxaan uga soo dhibay fariin inaan naga aqbasho soo dhaweyntiisa ugu sameeyay inaan ugu sameeynay waxaan ku leenahay magaalada ugu soo dhawow Cabdimaalik laba cisho iga soo horeeyay dabadiiba soo baxay oo ku faraxsanahay inaan labadooda xoriba saak halkan ka hormarno waxaan u mahadcelinaynaa shacbiyada reer Awdal waxaan mar kale u mahadnaqayaa xaafadda Xaasleyda oo iyagu run ahaantii laf dhabar weyn u ahaa soo dhaweynta samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon maanta waxaan ku leenahay ku faraxsanahay maatikaaga qof kasta oo xaq u dirira ama diida wixii dulmiya ama taadiya shacab weynaha iyo ummadda islaamka oo dhaw jecel yihiin haybnimo iyo qofka haduu aan loo kaliyo degmiyo gobol una ahayn cid kasta oo ka casaa waxna way tarasaa weyn u heelinaysa Cabdimaalik xarigaaga ka xumaay reer Boorame aad ba habeenay dharaar looga hadlayay gaar ugu mahadnaqayaa dhalinyarada gaar ahaan ka timid xaafadii Xaasleyda runtii oo aad isku soo abaabulay aad iyo aad buu mahadsan yihiin inta markaan ka imaado Cabdimaalik Muuse Coldoon kulay qofba maalin u baad gaaray deegaanba maalin baa la gaaraa maalin baa la gaaraa haddii maanta uu soo gaaray Boorame uu soo gaaray Cabdimaalik Muuse Coldoon farxad buu tahay gobolka Awdal sharaf buu tahay waayo Cabdimaalik maaha halkan masabka lagu soo dhaweynaya masab dawladeed maaha caaqil maaha suldaan maaha madaxweyne maaha wasiir maaha wax uu soo doontayna ma jirto Cabdimaalik wuxuu magaciisu uu caan ku noqdo dhamaangeeyga Soomaalidu caan ku noqday waxa weeyaan samafalka dadka jilicsan iyo u hadlida dadka codka aan lahayn reer Boorame reer Awdal aad iyo aad baan idin salaamayaa in ay gurmud halka ka yihiin bahdii saxaafadu oo runtii si milgale oo sharaf leh oo karaamo leh saxafi samafale Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon halkan ugu soo dhaweeyay in reer Awdal ama reer Boorame waxyaabaha ay aad ka caanka ugu yihiin waxa kamid ah sida martida loo sooro waxa kamid ah soo dhaweynta waxa kamid ah si dadka loo qiimeeyo oo meel sare loo gaarsiiyo runtii taa abaal weyn baan waxa tulay guud ahaan idinka haynaa anigu waxaan leeyahay tolo maxaan idhahdaa sidii dhuuxii Boorame yaa weyn joogaa sababta indhihi basaaso Boorame ma aragteen dhankooda waxa soo dhaweentani loo sameeyay samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon ka hadlay xubno ka tirsan warbaahinta gobolka Awdal waxayna ka dhawaajiyeen Cabdimaalik waxaad joogtaa Boorame halkii laga soo galayay dadka inta badan waxay yiraahdaan waa magaaladii aqoonta xadaarada nabadgelyada tanaasulka midnimada oo xasaa la yiraahdaa waxaan maanta ku leeyahay ku soo dhawow magaaladii dhameystiraysay bariga hadad intii bariga soo heshay intii hadad Boorame haysana intii galbeedku waad haysaa khadar ba hadal soo dhameeyay waanu ka xumayn xarigaagii waanu ka xumayn dhibaatadaadii aabe ilmihiisa laga qariyay waanu ka xumayn aabe gabadhiisa laga qariyay waanu ka xumayn waxaan marka ugu horeysa ku soo dhaweynaynaa sida horeba loo sheegay magaaladii aqoonta oo magaaladii xadaarada runtii markaad hore u gasho arki doontaa ilaa 8 jaamacadood ba ku yaala dadka dhamaantood aqlabiyad waxay u badeen waa waxa laga yaabaa inay shahaadooyinkooda wada masteris yihiin laakiin qaar digriina badan yihiin laakiin adu ma jiro wax levelkiisu oo jaamacad ka hoose u yar yahay marka laga reebo dhalinyarada dugsiyada sare ku jirta dhinaca kale xagga siyaasadda marka loo kacana magaaladii nabadda iyo dib u dhiska oo dugsigii sare Sheekh Cali Jawhar halkii Soomaaliland 93 lagu dhigay ayaa goobtaas ku taala Cabdimaalik waxaan runtii leeyahay kulli wax badan waad u soo samartay intaad xabsiga ku jirtay runtii waxa kale oo aad iyo aad ugu farxay maalintii aad soo baxday kara
hal qodob oo ah in cabdimaalik sheekh muuse coldoon in barnaamijkii kaalmee kuwan ee uu qaban jiray in uu gobolka awdal mar soo gaadhay markaasoo uu caawiyey islaan hooye ahayd oo uu kansarnaasan kaga dhacay cabdimaalik maanta uguma horrayso barnaamijka kaalmee kuwanna boorama ayuu soo gaadhay runtii isagoo dadaalkaa ku jira ayay wixii dhacayay ay dhaceen guntiyo gebagabadii waxaa halkaasi ka hadlay saxaafi samafale cabdimaalik muuse coldoon waxaana uu isdul taagay barnaamijkiisa samafalka ee kuwan kaalmee halkanna waxa weeye magaaladeedii baan soo gaadhay gobolkaygii baan soo gaadhay annagu muxuu ahaay waxa weeye laa xisbiye mucaaradaan ku jirnaa walaa xisbiye muxaafadaan ku jirnaa waxaanu nahay dad xora oo aragti xora sheegaya taasaanuna aaminsannahay waxa weeye dad badani waxay yidhaahdaan maxaad u hadashay bay yidhaahdaan maxaan ka baqaa lagu xidhaa ma ereyga dad dulman baan kaga imi jeelka dad dulman baan kaga imi jeelka lagu xidhaya haddaa maxaan ka imi dee wax dadkaana oge ilaahay baan hor istaagayaa ma been baan ka sheegaa ka sheegi maayo dadkaana waxaan ugu baaqayaa cidda ay khusayso anoo wanaag wada waxaan ugu baaqayaa in dadkaa arrin kiisaskooda hoos loo eego xukuumadda qaybaheeda kala duwan hay-adaha garsoorka cid kastaba waxa weeye muxuu ahaye hoos baan ugu sheegaynaa waxaan doonayaa halkanna muxuu ahaye kaga dhawaaqaya oodweyne waxaan ka yidhi dad dulman baan kaga imi jeelka oo aan ka hadli doono waxaan doonayaa ka hadalkaygii hakad baan doonaya inaan geliyo waxaaban doonayaa bal cidda ay khusaysa inaan u tago intaanan ka hadal oo aanay u arag inaan ceebaynayo ama aan dagaal kula jiro bal cidda ay khusaysaan doonayaa inaan ula tago diyaar baan u ahay inaan hor fadhiisto madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo aan si gaar ah uga sheego dadka aan soo arkay isagu hadduu diyaar u yahay albaabada hay furo